waxa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay qofku marka uu doono gurigiisa inuu ka baxo in albaabka shayaadiintu ay ku sugayaan halkaasay doonayaan inay ka raacaan waxay u raacayaanna maaha inay dantiisa iyo waxa waxtar u leh ay ka shaqaynayaan waxay doonayaan inay dhibaateeyaan diin ahaan iyo adduunye ahaan labadaba inay u dhibaateeyaan qofku waxa qure uu iskaga difaaci karaa waa inuu ilaahay subxaana watacaala xuso oo rabbi subxaana watacaala shayaadiinta iyo sharkooda uu ka magan galo haddii uu yidhaahdo qofku markuu gurigiisa ka baxayo bismi illaahi tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah sida abu daawuud sunantiisa uu ku wariyey shayaadiintii halkaa ku sugaysay dhufayska ugu jirtay ayaa wada hadasha mid baa wuxuu ku odhanayaa ka kale marka horta qofku ducada uu akhriyo wuxuu helayaa hanuunka ilaahay ama hanuuninta ilaahay iyo ilaalinta ilaahay uqiita wa kufita waxa lagu odhanaya waa lagu ilaaliyey wax allaaliya wixii dhibaato iyo mashaakilana waa lagaaga filaaday waa lagaa qaabilay shayaadiintii baa maqlaya warka noocaas iyagaa wada hadlaya waxay odhanayaan kayfa bika ilaa rajulin qad kufiya wahudiya wawuqiya sidaad isugu dayeysaa inaad lumiso ama aad dhibaatayso nin loo ballan qaaday hanuunin ilaalin iyo in lagaga filaado oo dhibaato kasta arrimihiis oo dhanna la baylah tiro deetana dhinacaasay uga leexanayaan haddii qofku markaa dikrigaa uu akhrin waayena halkaasay shayaadiintu ay ka raacayaan oo ay kala rafiiqayaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidaynu sheegnay noloshiisa oo dhan ayuu ku taxnaa oo ku qaybsanaa dikriga ilaahay subxaana wa tacaala markuu guriga ka baxayay sidaasuu ilaahay u xuso xagga masaajidku u baxay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu masaajidka gelayo wuxuu masaajidka ku geli jiray lugta midig waayo masaajidku waa meel ilaahay sharaf iyo qiimo u yeelay midigtana ama gacan ha noqoto ama lug ha noqotee waxyaabaha sharafta iyo karaamada iyo qiimaha leh ayaa had iyo jeeraale lagu horeysiiyaa markaa lugta midig buu ku geli jiray waxaanuu ku geli jiray magaca ilaahay bal labadaa xus intay isu jiraan baleeg guriguu hadda ka soo baxay maruu guriga ka baxaya ilaahay buu subxana wa tacaala xusay masaajidkiibuu gelayaa masaajidkii markuu gelayana ilahay buu subxana wa tacaala xusaya bismi illaahi buu odhan jiray magaca ilaahay baan ku gelaya oo gelitaanka masaajidka aan u kaalmaysanaya wasalaamu calaa rasuuli illaah allaahuma kfir lii dunuubii ilaahw dembiyada ii dhaaf waa iyadoo dembigii lagu dhaafay haddaad masaajidka gasho cibaadadii masaajidka aad u gashay baa kuu fududaanaysa cibaadadiina way kuu dhadhamaysaa qalbigaaguna wuu ku degayaa oo raaxo iyo qabow ayuu ka dareemaya laakiin adoo dembiyadii xambaarsan haddaad masaajidka la soo gasho waxaa dhacaysa inay cibaadadii kugu cuslaato isla markaa ay kuu dhadhami weydo oo macaankeedii aada heli weydo qalbigaagana ay qoyn weydo waftax lii abwaaba raxmatik ilaah waxaad ii furtaa albaabada raxmaddaada ilaahay raxmaddiisu waa ballaadhan tahay asbaab baanay leedahay ilaahay qur-aanka uu inoogu sheegay ama nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiidiisa uu inoogu caddeeyey markaa nebigu markuu masaajidka soo gelay wuxuu ilaahay weydiisan jiray asbaabta raxmadda ilaahay inuu waafajiyo waayo masaajidka qofku markuu soo galo masaajidka dhexdiisa wuxuu ka odhan karaa kuna samayn karaa waxyaabo fara badan oo sabab ugu noqda ilahay inuu naxariisto waxyaabahana qofku ma samayn kara haddaanu ilaahay waafajin marka ilaahay subxana wa tacaala waa inuu weydiisto acuudu billaahi alcadiim allaha weyn baan magan gelayaa wabiwajhihi alkariim wejigiisa sharafta badan baan magan gelayaa wabisulطaanihi alqadiim ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa horeysay ayaan magan gelayaa min ashayطaan الrajiim waxaan ka magan gelayaa allah subxaana wa tacaala weyn wejigiisa weyn awooddiisa horeysay shaydaanka la fogeeyey in laga diriyey ilaahay subxana wa tacaala naxariistiisa iyadoo intaa ka gaaban ducadaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda waa baray bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah inuu intaasoo qura yadhaa markuu masaajidka gelayo hadduu sidan u dhammaystirana waa fiican tahay